بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore waxaan leeyahay hambariyo hawsha Allah idin la qabto guddiga kumeel gaarka shaqada loo qabtay sidaas oo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddigii kumeel gaarka ah ee shaqadan soo waday ahna guddiga qabanqaabada xibnaha himilo qaran ee maanta halkan fadhiya waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dadaalka aan kala go'o lahayn ee xilliga adag ay soo galeen ku suura galiyeen maanta inuu xisbigu halkan soo gaaro aad iyo aad u mahadsantiin aan leeyahay marka hore intaas kadib waxaan u maleynayaa inaan ka wada dharigsanahay sababta isu keentay intaan qof ayna tahay inaan aaminsanahay in loo baahan yahay xisbi siyaasadeed oo hana kara talada dalka kana saari kara xaaladda dalku ku jiro gaarsii kara ummadda Soomaaliyeed himilooyinka ay higsanayaan dadkii oo dhan ma aha laakiin waa dad asaas u noqon kara dad badan oo Soomaaliyeed oo wax karada oo rag iyo haweenba leh inay xisbiga ku soo biiraan oo ka qayb qaataan sidaan wada ognahay xisbigu wuxuu soo maray maraaxil kala duwan walina waxa uu dhiman maraaxil ay tahay inuu gudbo oo si wanaagsan oo leh mataqaana hufnaan iyo karti iyo waajihido waajahayo xaaladda dalka qaybaheeda kala duwan inuu maro marka sidaan wada ognahayna dalkeenu uma laha taariikh dheer arrimaha xisbiyada waa laga yaabaa odayaasha naga horeeyay oo aan u maleynayo odayaasha xagga fadhiga qaarkood inay ka mid yihiin inay soo arkeen axsaab laakiin inteena badan ama xilligii dowladda militariga ama xilligii ka dambeeyaan laga yaabaa in ay dhasheen ama la soo jaan qaadeen ummad hadday meel joogtana waa lagama maarmaan inay helaan nidaam siyaasadeed oo ku dhisan cadaalad oo xaqiijiya himilooyinka ummadeed ee dadku ay leeyihiin si taas loo gaaro marka waxaan aaminsanahay xisbiga himilo inuu ka jawaabayo arrintaas oo yahay xisbi ku habboon inuu shaqadaas qabto أن هو إن شاء الله تبارك وتعالى أمد الصومال إذا كرسوني بدن كقبان رجب بدن أي كقبان شغلة سنوقبت ما دام السيد أستايا أمد أي كرسوني بدن كقبان رجب بدن كقبان هنا عن هنتي إسدي رجلنا إسكودي رجلنا هنا شغلة نقل في لا يفسد أقوى نكسر أنا وصوب إحنا وحنا ربنا نوجد له ضد الصومال يدوحنا إلى bulshada hadda joogta boqolkiiba 73 waa dhalinyaraduna marar badan waa cabtaan oo waxay yiraahdaan si badan uga muuqano waxaan rajaynayaa xisbiga himilo qaran inuu noqdo midka fursad weysiya dhalinyarada hogaanna waxa uu wanaagsan leeyahay midka diyaariya jiilka bedel lahay marka ما أقان أنا هذا قولنا أقول ترنيسين لكن وحن جعلها هنا كقيب قاتو ديارنت جيلك عصب إن شاء الله حزبك أنا أو نقضي حزبك اللي هو علامة إنه شغال أسقطه غضبك سدحات مع فراد عن ربنا أوجد بوا هوانك أو مروى الباها يحبين في الفرعون أو كقيب قادتا أرمها قرنك أرمها قويسك aan ka daalin ummadnimada iyo dawladnimada Soomaaliyeed ayadana waxaan rajaynayaa in uu xisbigu noqdo xisbi si ahmiyad weyn arinta intaas aan ka dhicin waxa waaye isdhaxgalka bulshada Soomaaliyeed iyo wax wada qabsigeeda iyo dhismaha kalsoonidooda oo ayadana ah arin muhiim ah oo aan rabno xisbigu inuu ka jawaabo runtii si wanaagsan u bilaabatay laakiin aan rajaynayno sida ka fiican si ka fiican oo ka balaaran inuu xisbigu waajaho waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo dareenka dad badan oo xisbiga ama xibno badan oo xisbiga kamid ah ay qabaan oo ah inay gobolada kala duwan dalku ay xisbiga aad uga muuqdaan xisbiga uu gaaro gobolada oo runtii aan qabo inay noqoto arrin istiraatiiji oo xisbiga ahmiyad gaar ah la siiyo ma rabo inaan aad u dheereeyo warka insha Allah guddigan u diri doonaa daadinta xisbiga daadinta shirka aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.